deegaankan aanu joogno Jabano waa ka caan dawaa arkaysaan markaa isagoo fresh oo imika beertii laga soo gooyay ayaan annaguna ku yara guraynaa odayaashii magaalada imika la joognaa waa 11kii iyo badhkii waa xilligii Jabana xilligan soo ma oo markaa qaylkii lama gaadhin imise nooc buu kala baxaa qaadka maalintii qaylkiisu ha Jabana ayooti weeyaan way marka la aqoon ilaa waqti qaba هاي هاي ka dambeeyay waxa weeyaan qayl way wala soo kala kan ku diraa hada diraa inta fiidka هاي qarxisna ma jirin way aad iyo aad baa mahadsantiin waa mahadsantiin markii aanu ka nimi halkii raggu ku jabanaynayay badankiisu waxaanu soo galnay meel dumarka ay ku jabanaynayaan noocan qaadka cunaysaan maxaa la yidhaa waa jabaniiso ma banaha ilaa imsadaal bilaabaa jabana ha 4 saacadood waa 8 subaxnimo ilaa imsadaal la wadaa ilaa 12 ilaa 12 duhurnimo 12 galabnimo waa ilaa 4 galabnimo marka la qadeeyo ayaa deedna qaylkiina la waa lagu celin hadana ilaa imsada deedna ilaa 2 saacadood ee habeenimo lagu gaarsiin ama 3 habeenimo ilaa 3 habeenimo ilaa 9 fiidnimo marka haweenku qarxiska iyagu ma galaan miya biyo raaciska waan qayla gaaya waan cabnaa galabtii ma bumba ku cabaysaa mise xasharkii xasharkii ay gelika daba markaa badeecadii shiishadii lagu cabaya ay 12 galabnimo la saarayaa waxa lagu gaarayaa 6 habeenimo marka dumarka oo kale ma asxaabtooda la fadhiistaan mise qoysku iyaga wada fadhiistaan may dumarka ma wada asxaabtooda inta asxaabtooda way aad iyo aad u mahadsantiin demirqaan wanaagsan waxa kaloo la ii sheegay in rag iyo dumarku markay qaadka timaado aanay ku kala duwanaynuun siyaabaha loo guro iyo qolo walibaaba nooca ay gurto laakiin xitaa markay isticmaalka iyo cunidiisa timaado ay ku kala duwan yihiin oo ragguna ka qori boqorka ay soo guraan ay cunaan dumarkuna tajarada bal hadda taa tafaasiil naga sii waxa weeye absalaano rag iyo dumarku way kala qaybsan yihiin waa rag waana dumar jaadkuna waxa weeyaan ka ragga oo isticmaalaya waxa weeyaan geed boqorka dhaadheer ee fujiska ama jabiska ka ragga isticmaala oo de sayladaha geeya oo gura wixii isaga fadhigiisa ana qaylkiisa kala hada oo isticmaalkiisa de wixii ku filan qayl ah fadhiga isaga la hada qofka dumarkiina jaadka qaybta ay leedahay ee guritaanka markay gurto taajarada ayay bacaynaysaa way mooreynaysaa way qaadaysaa saylada geynaysaa markay geesi saylada iibiso wixii marka fadhigeeda marka ku filan iyada la hadaysa marka wax weeyaan saas la kala duwan yahay labada raqam kala yahay laakiin marka cunitaanka timaado qoyskoo dhan caadi wada cunaan maya waxa weeye dadka da'da jooga ama 15 jir wixii ka sareeya ama dumar ama dhalinyara ama de waa yeelba ayaa cunaya saacadaha la cunaya wax weeyaan Jabanada marba lagu yar fariisanaya dabadeed waxa weeyaan waa qayl waqtul qadaha ka dib bal qaylaya shanta galabnimo waxa ka dambeeyay wax weeyaan biiraas bal ilaadaayo waa ragga iyo intii qaylka ku fiicnayd ayaa markaa ku yar kuleelinaysa oo qarxinaysa way aad baad mahadsantahay nolol ma hadal noloshu baabinaya waxa dhan u tirtiraya marka waxa weey wax la qabsado ka fiican baa jira waan aaminay waa caleen afar laba sano la cunayo dadkii oo dhan isagoo hawlgab ka dhigaya hawlgab dadka dhigaya marka wax faa'iido leh ma jirto laakiin dadka tirtiru baa booskiisii uu nagu banaanaya haddaan xumaan ka sheegno marka waxa isbedel oo kale oo dhaamo isaga aanu isticmaalkiisii aanu gelinarkiisii haddaan helno ku fiican hadii kalena ilaa inta waqti isbedel helnaba inaan si yar wadno ba fiican intaasna waxa ku dhan barnaamijkan oo aanu ku eegaynay beeraha deegaanka ee qaadku ka baxo imika waxaanu ku noqonaynaa dhinaca magaalada Jigjiga hadiyad baa laakiin la sii siinaya Xuseen
aad iyo aad baad umahadsantahay intan ma annagaa leh waad mahadsantahay cabdisalaan waxa weeye maadaama aad soo booqateen wax kaloo dee meeshii degaankii aad noo soo booqateen waxa ku yaala jaadkeeda waxa weeyaan waqtigan uu nagu gaabtay innagoo idin sabootayna waxa weeyaan intaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantahay waata xuseen aad baad umahadsantahay waa waqtigan nagu gaabtay waad isoo kordhinay waaw waayi barnaamijkiina intaasuu ku dhan yahay nabadgelyo